بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم halkan waxaa ka hadlaya cabdiraxmaan cali ubaxle waa agaasimihii hore ee TV qaranka qaaradda Yurub waxaan ku magacawnaa xilka agaasimaha TV qaranka qaaradda Yurub laga soo bilaabo 4tii bishii November 2017 ilaa 22kii bishii labaad 2018 muddo 4 bilood ayaa xilkaasi hayay waxa xilka la igu magacaabay wasiirkii hore ee wasaaradda warfaafinta uu igu magacaabay xilkaasi sixitaan ku saabsan in aan soo saxo shaqaalaha mushaharooyinka qalabaadka iyo dhammaan waxa halkaasi yaala in aan sixitaan ku soo sameeyo isla markaana aan kadib markii agaasimihii hore halka hayay loo magacaabay wakiilka Soomaaliland u fadhiya Ireland wasaaradda iyo wasiirku waxay iga codsadeen in aan magacaabistaasi kadib sixitaan degdeg ah ku soo sameeyo shaqadaasi halka waxaan ka bilaabay madaxweyne mudanayaal iyo dhammaan cidda khusayso inaan soo tiro koobo shaqaalaha ka howlgala TV qaranka ee qaaradda Yurub ee wasaaradda warfaafinta Soomaaliland ka mushahar qaata liiskaas dhabta ah ee saxa ah ee 17 qof ay ku taalo ilaa halkaas lambar 17 ayaa Yurub ka howlgala shaqaalaha TV qaranka Yurub uga howlgala inta ay dhameystirnaayeen sida halka ku aragtaan mushaharkooda marka laga reebo labada mas'uul ugu sareeya oo midna uu yahay gudoomiyaha TV qaranka ee qaaradda Yurub oo xukuumadii ilaa intii TV qaranka ee qaaradda Yurub oo jiray ku magacawnaa mudane Cabdi Bacaw iyo agaasimaha TV qaranka ee wasaaradda warfaafintu magacawdo oo aan anigu agaasimihii saddexaad ahaa Khadar Xasan Cali Gaas lambar 1 ahaa lambar 2 Cabdiraxmaan Maxamed Aadan oo ahaa lambar 3 gana aan agaasimihii saddexaad ahaa labada mas'uul ugu sareeyay marka laga reebo mooyaane oo mushaharkoodu uu 1400 ahaa marka laga reebo shaqaalaha inta kale halka waxa ku cad 500 waxa ugu sareeyay mushaharka 820 oo wariyaha rogcadaaga ah soo saaraha barnaamijyada ugu badan ee TV qaranka Yurub ka baxa uu qaadan jiray ayaa xal la yiraahdaa ugu badan marka la isu geeyo halka waxa ku cad dhammaan shaqaalaha Yurub ka howlgala oo 17 qof ka kooban mushaharkoodu inuu yahay $18,000 waxa inta dheeraa mudane madaxweyne $6,620 oo ku baxa kirooyinka 3 studio oo maxaa la yiraahdaa ka howlgeli jiray Yurub waa Sweden London studio koowaad London ku yaala ka labaad Sweden ku yaala ka saddexaad oo magaalada Birmingham caasimadda labaad Ingiriis ku yaala total xisaabtaasi marka la isu geeyo waa 24,680 bishii ayaa loo soo diri jiray TV qaranka ee dibadda 17 intaasi waxay ku fargarayn jirtay oo aan hubsiimo 4 iyo 5 jeer ku sameeyay 17 qof oo shaqaale ah oo barnaamijyo tayo leh ka soo saara qaaradda Yurub oo wariyayaal oo wax soo saar TV qaranka runaantii ugu qabsanaa iyo xarumaha ay ku howlgalaan ay 24 bishiisa ku fargarayn jiray sida ku cad bank statement-kan halka waxa ku qoran mudane madaxweyne 24,680 waa halka ku taxan lacagtii loo soo sugay TV qaranka waxay ku dhici jirtay akoon
lambar 30516 ayay ku dhici jirtay. akoon lambarkaasi waa akoon ku magacaaban Somaliland National TV Europe. mudane madaxweyne 24 kun ayaa ku fargarayn jiray Yurub oo dhan, shaqaalaheeda, xarumaheeda iyo istuudiyaasheeda. wax soo saarkoodana mudane madaxweyne waad garanaysaa, sidaan hore warbixin fara badan idinku soo gudbiyey. waxaase nasiib darro ah oo maanta halkan rabaa inaan ka caddeeyo, waxa wasiirka wasaaradda warfaafinta xisaabta inta aanan ka gudbin waxay noqotaa sanadkii waxay noqotaa marka la isu geeyo mudane madaxweyne, marka la isu geeyo 24 meelood 12 bilood oo loo soo diri jiray TV-ga qaranka ee Yurub 24,680 xarumaha carabta ee Sacuudi Arabiya loogu diri jirayna bishii 2,000 baa loo diri jiray dollar. xarunta Djibouti-na $500 baa wariyaha jooga loo diri jiray. Kenyana $2,000 baa bishii loo diri jiray. 29,180 ayaa bishii ay noqon jirtay. dhammaan wax alla waxa ku magacaaban TV-ga qaranka ee dibadda sanadkii waa $350,160 ayaa gaadhay. mudane madaxweyne, waxa halkan ku cad miisaaniyaddii sanadkii hore ee TV-ga qaranka 2017 waxa ugu jiray 400 iyo sida halkaa ku cad miisaaniyaddii hore ee sanadkan iyo tii 2018 iyo tii 2017 $463,000 ayaa ugu jiray miisaaniyadda. waxaa TV-ga qaranka ee dibadda meeluu joogaba gaadhay 350,000. mudane madaxweyne, waxaa la luuqsaday lacag dhan $113,000. iyadoo taas jirto, nasiib darro ayaa wasiirka cusubi madaxweyne wuxuu soo saaray digreet halkan odhanaysa waxaan kala diray. digreetadaasi waxay odhanaysaa waxaan kala diray shaqaalihii TV-ga ee dibadda sababta anigoo xukuumadda u seefgaraynaya lacag kharashaadkii ku bixi jirana yaraynaya. ayuu halkan ku qoran wasiirka wasaaradda warfaafinta ee cusub cabdiraxmaan cabdilaahi guri barwaaqo. wuxuu halkan ku caddeeyey inuu kala diray dhammaan xafiisyadii dibadda xidhay, inuu dhammaan shaqaalihii dibadda kala diray laga bilaabo bishii February, in TV-ga qaranka lagu soo reebay xarun London wariye u joogi doona si loo yareeyo kharashka ku bixi jiray. waa arrin aad u wanaagsan, haddii wasiirku ka dhabeeyo waa arrin aad u wanaagsan. waxaa dhinac socotay oo wasiirku uu yidhi waxa ku bixi jiray, waxa ka hawlgeli jiray 51 qof, 30 qof, waxaana ku bixi jirtay lacag $50,000. mudane madaxweyne, wax allaalay wax arrinkaa ka jiray ma jirin. TV-ga qaranka ee dibadda 29,000 oo 24,000 Yurub oo dhan ay ka dhaxaysay, 2,000 Sacuudiga loo diri jiray, 2,000 Kenya, 500 loo diri jiray Djibouti. 29,000 baa mudane madaxweyne ku bixi jiray. 350,000 bay sanadkii noqotaa. lacagta oo ansaxsanay miisaaniyadda ku jirtaana ee 2017 ugu jirtayna waa 463,000. 463,000 wasaaradda maaliyadda way ka soo dhamaatay. 350,000 baana gaadhay.
intii kale wasaaradda warfaafinta iyo ciddii gacanta ku haysay ayaa laga xisaabtamaya. waxaa intaa dheer iyadoo digreetadaas ay ku caddahay mudane madaxweyne ay ku caddahay in dhaqaale la'aan loo kala diray wax allaalay wixii shaqaale halkaa ka hawlgeli jiray xarumihiina la soo xidhay ayaa miisaaniyadda maanta ee 2018 waxaa TV-ga qaranka ee dibadda ugu jira mudane madaxweyne lacag dhan 2,527 milyan oo u dhiganta $421,000 $421,000 mudane madaxweyne $421,000 oo shaqaalihii dibadda dhammaantood la kala diray oo xafiisyadii dibadda dhammaantood la soo wada xiray halkee bay ku baxaysaa ee ay miisaaniyadda ugu jirtaa miisaaniyadda halkee bay ugu jirtaa wasiirkii cusbaa ee wasaaradda warfaafinta markii aan hor dhigay ee aan ku yidhi mudane wasiir intaasoo muwaadiniin oo shaqaale ah oo 7 sannadood xooggooga iyo tacabkooda ama 4 bilood baan agaasime ahaa waa lay beddeli karaa intaasoo qofoo shaqaale ah oo muwaadiniin oo mudane madaxweyne markaad ingiriiska timaaddo kuwii goob walba iyo golo kasta kula taagnaa ay ahaayeen ee inta muddada faraha badan fulintiga ku shaqaynayeen ay ahaayeen ee muwaadiniinta ahaa ee jaaliyadda Soomaaliland ee maxalli qurbajoogga ahaa ee dal walba joogay ee heeganka u ahaa qarankooda marka la kala diray la yidhi lacag looma hayo haddana miisaaniyaddii ay weli wasiirka ugu jirto uu ku soo darsaday markaan wax ka weydiiyey ee aan ku yidhi mudane wasiir haddiiba aad tidhi oo digreetadaada ay ku caddahay dhaqaale la'aan baan u kala dirayaa shaqaalahan maxay ku dhacday inaad miisaaniyaddii haddana weli ay kugu jirto maxaad uga reebi weyday odhan weyday dawladda waa nuu saafgaranayntaa maxaa weli kharashkii TV-ga qaranka sidiisuu miisaaniyadda ugu jiraa ee dibaddu wuxuu iigu jawaabay aduu looyarkii dawladda ma tihid shaqadaadana ma ah ayuu iigu jawaabay aad baan uga xumahay musuq maasuq baa la yaraynayay corruption baa la yaraynayay in qaranka cadaalad iyo sinaan lagu hagaaba la yaraynayay waan ku raacsannahay cid kasta oo qaranka cadaalad iyo sinaan ku wadaysa corruptionna ilaalinaysa laakiin waxaa nasiib darro ah iyadoo hantidii sanadkii hore 2017 lacagtii lagu magacaabay TV-ga qaranka ee dibadda $111,000 la lunsaday oo ay TV-ga qaranka ee dibadda ku magacaabantahay oo aanay soo gaarin in sanadkan miisaaniyadda sideedii loogu darsaday waxaa taa dheer madaxweyne waxaan kugu sii caddaynayaa TV-ga qaranka ee dibadda waxaa maanta loo qoondeeyey bishii waxaa loo qoondeeyey sida halkaa ku cad 9,254 baa loo qoondeeyey TV-ga qaranka ee dibadda bishii marka sanadkii la isku daro 12 bilood waa $111,000 $111,000 weeye mudane madaxweyne waxaana u ansaxsanay miisaaniyadda ugu jira in TV-ga qaranka loo diri doono ama ay ku baxayso lacag dhan sida halkaa ku cad miisaaniyadda mudane madaxweyne waxa ku cad in oo la ansixiyey oo wasaaradda baarlamaankuna ansixiyey oo maanta TV-ga qaranka dibadda 2018 ugu jirta 421,000 inay TV-ga qaranka dibadda ku baxayso 421,000 maaha satellite maaha maxaa la yidhaahdaa alaabo la soo iibinayo waa mushaharkii shaqaalaha TV-ga qaranka ee Yurub ee dibadda 421,000 waa u ansaxsan tahay oo miisaaniyadda ugu jirtaa 111,000 waa loo qoondeeyey oo 9,250 baa bishii loo qoondeeyey
sida halkaa ku cad bishii in loo diro TV-ga qaranka ee dibadda waa 111,000 421 way ansaxsan tahay oo miisaaniyadda ugu jirtaa 310,000 oo saa'ida ayaa halkaa ku jira madaxweyne muwaadiniinta Somaliland ee TV-ga qaranka u joogay dibadaha looma kala dirin xaqiiqatan looma kala dirin mushahar loo waayay ama lacag loo seefgareynay xukuumadda Somaliland laakiin waxa loo kala diray in lacagtoodii la lusado wasiirku mar hadduu caddeeyey inuu yidhi miisaan kharash uma hayno dowladdaanu seefgaraynayna miisaaniyadda sanadkan kuma darsadeen xisaabtii TV-ga qaranka ee dibadda hadduu ku darsadana intaa uu qoondeeyay 111,000 ayuu ku darsan lahaa laakiin 421,000 baan TV-ga qaranka ee dibadda u dirayaa kuma darsadeen waa arrin u baahan baaritaankeeda waa arrin u baahan muwaadiniinta la mooral jabiyey ee 7 sannadood qalabka iyo maxaa la yiraahdaa inay dayactirkooda ilaalintooda ku shaqayntooda qarankooda garab taagnaantooda u taagnaa ee la niyad jabiyey ee qalbigooda iyo maskaxdoodiiba lagu cayaaray ee beenta laga sheegay ee la yiri $50,000 baa bishii loo diri jiray mudane madaxweyne aad wax ka qabato ayaanu kaa codsanaynaa anuu agaasimaan ahaa 4 bilood 4 bilood sixitaankii aan sameeyey wixii aan meesha ugu tegey wixii aan soo caddeeyey xataa waxaan soo sameeyey payment voucher aan wasiirka iyo maxaa la yiraahdaa agaasimaha xisaabaadka uu soo diraan ku idhi lacagta hadda kadib lacagta waxay ku bixi doontaa saxiix 3 qof akoonka TV-ga qaranka ee Yurub markaa ku subtaan lacagtaasi mushahar iyo overhead cost iyo xafiiska kharashaadkiisa wixii ay ku baxdaa ilaa iyadoo cad oo payment voucherkaasi la socda aan soo raacin mooyaane kama soo bixi doontaa akoonka laakiin looma baahnayn qof qaranka xoolihiisa ilaaliya waxa loo baahnaa qof tuuga oo la cuna oo aan xisaab caynkaas caddaynin anigu waxaan maanta u doodayaa shaqaalahan ugu tegay TV-ga qaranka Yurub shaqaalaha hawlkara aqoon-yahamiina karti badan waqti fara badan siiyey dalkooda iyo qarankooda laakiin lagu xadgudbay iyadoo aan loo waayay voluntary inay ugu shaqeeyaan qarankooda raalli ka ahaan laakiin wasiirku sida jees-jeeska ah ee uu yidhi lacag baa dad la isaga diri jiray isagoo waxba hubsanin aad iyo aad baan uga xumahay meelka dhaca uu mudane madaxweyne dadkii maalin walba ku garab taagnaa ku dhinac ordayey kuu hiilinayey garabkaaga iyo gaashaankaaga ahaa in si jees-jeesa loogu yidhaahdo lacag aanay maxaa la yiraahdaa waxba ku qoon baa loo diri jiray haddana lacagtii weli ay miisaaniyadda ugu jirto waxaan rajaynaynaa adu wax ka qaban doonta haddii alla ka dhigo xaqiiqadana waa sidaas ilaa iminkadan dadkii caynkaa ahaa ee la kala diray ee la eriyey ee moralkoodii waddananimo lagu cayaaray mushaharkoodii bishii 2 bil baa ka maqan akoon baa lagu haystaa inan shaqaalaha ka mida oo ka dacwoonaysa oo dadkii gacanta ku hayay 7 sannadood xarumaha gacanta ugu hayaan ugu tegey ee qalabka mas'uulka ka ahaa ee iyagu waliba intay lacagtooda iska ururiyeen soo iibiyeen ayaa waxay ku andacoonaysaa in wasiirku iyo agaasimuhuba ay aflagaadeeyeen intay la soo hadasho ku tiri maxaa xuquuqdeedii ka damacdeen oo labaduba aflagaadeeyeen inantaas iyadoo furayaasha iyo qalabka meeshooda inta gacanta ku haysaydaan adminka xafiiska ahayd ayay qalab ka mida qalabadii TV-ga qaranka ee xafiis ku shaqaynayay qaadatay way caddaysay gurigaygan ku hayaabay tiri dembi baa laga galay bay tiri xuquuq baa sheeganayaa bay tiri in laga garbaxaa baan doonayaa bay tiri 7 sannadood baan dantayda u waayay bay tiri ilaalinta qaranka iyo alaabtiisa maantana waxa laygu abaalguday cay iyo aflagaado ha layga soo garbaxa bay tiri inantii alaabta gacanta ilaa imika ku haysaa
cid allaale cid u garooday ma jirto waxaa loogu daray in mushaharkii shaqaalaha kale aan waxba galabsanin ee bilaa sababta lagu eriyey mushaharkoodii maanta akoon lagu haysto wasiirkuna jees marba noogu yidhaahdo maxaa la yidhahdaa anu markaan u tegay mas-uul ahaan aan ku yidhi mudane wasiir aniga inaad xilliga qaado macna ii samaysaa ma jirto xilli waa soo hayn jiray waa laga qaadi jiray xilki waa wareegto adaa berri lagaa qaaday mid kale loo dhiibaya dhiba kuma jirto anu hal beersan baan ahay laakiin shaqaalahaad markii horena ku tacadiday ee beenta ka sheegteen ee aad ku jeesjeesteen ee aad tiraahdeen lacagyo aanay qaadan jirin bay qaataan mushaharkoodii maanta waa inaad ku haysataan maxaa la yidhaahdaa akoon xaq uguma lehidin ama qof kale oo isagu muwaadin ahaa oo shaqaale ahaa oo dembi sheeganayo dembigayga laga garbaxo alaabta ana hayee tii awal la gacanta ku haysa ay tahay intaasoo agaasima meesha soo bedeshay inantii furayaasha xafiiska weligeed ba haysay ahayd inantii administrationka meesha gacanta ku haysay ahayd mas-uuliyad intaa ka weyn iyo maxaa la yidhahdaa documentary intaa ka weyn bay gacanta ku haysay waxay ku andacoonaysaa wasiirkii agaasimi xisaabaadka marka la soo hadlay waa leecaayay weliba dumar ingiriiska jooga laygu soo diray dee hal layga garbaxay taagan tahay alaabtii qarankana awalba sida la ii sheegay ee aan mas-uuliyiintii hore ugu tegay meesha qalabkii wasaaradda warfaafintu ay tiri lacagtaasaan idiin soo diray ku iibsada ma ahayn iyagaa intay iska yidhaahdeen waynu u baahannahay markii loo iibin waayey lacagtoodii iska gooyey soo iibiyey dhigay meesha laakiin alaab qaran bay ku magacaabantay qofna maanta ma laha kii mikrofon meesha ku soo diray iyo kii kamarad keenayba alaab qaran bay ku magacawnayd raallina way ka ahayn in sharaf iyo karaamada ku wareejiyaan laakiin jeesjeeska ku samayseen mushaharkoodii aad ku dhibteen cadaalad darrada ku samayseen mooral xumada ku samayseen baa inantaasi cadhadaa bahalkaa u haysaa ilaa imika kuwa kale in loo baanish gareeyo ama loo ciqaabo xaq looguma laha aniga in maalin walba maxaa la yidhahdo uma doodi kartid shaqaale iyo dawladda uma doodi kartid dee wasiirku maalin walba mudane madaxweyne inuu ila hortaagnaado bal adigu ka tali aad iyo aad baan madaxweyne kuu ammaanayaa kuu salaamayaa karaamihii sharaf kuugu haynaa muwaadiniintaas somalilan ee garbahaaga taagnaa waa kuwa sidaa loo galay ee lagu hortaada lagu karbaashay ee maxaa la yidhahda wasiirkaas isagoon ka fiirsanin uu wuxuu doona ku sameeyey markaan imika ugu taga xafiiskii aan ku yidhaahdo war dadkan xaquuqdoodiina ha la soo siiyo waaba aragtaa lacagtooda waa ansixistateenna afcad buu igu yidhi adigu looyarka dawladda ma tihid boqolaal baad ka sheekaynaysaa milyan baan unusanayna maxaa kaa galay waxaan rajaynayaa insha allah dee in cadaaladdu shaqayso oo aan dadka lagu tacadiyin oo aan lagu xadgudbin waxaan waa qaran la wada leeyahay dadku ka dhexeeyaa waxaanu doonaynaa inaynu qaran kala dambayn iyo nidaam leh ku shaqayno laakiin meel ninka loo dhiibaaba uu inta kale ku tacadiyo haddaynu ku soconayno dee khasaaro maynu ku sugnaanayno dadka qurbaha joogaana dad mushahar iyo maxaa la yidhaahdaa lacag qiimo la leedahay ma ah laakiin karaamo iyo wadaniyad ay dalkooda ku dhinac taagnaadaan ba idinka baahnaayeen karaamadii iyo wadaniyaddii cabdiraxmaan cabdilaahi guri barwaaqo ayaa ku ciyaaray oo mooral jabiyey oo wadaniyaddii ka qaaday aad iyo aad baan ugu xumaan waxaan rajaynaya insha allah in arrinkaas wax laga qaban doono wax kasta oo evidence ah waxaan ka xumahay madaxweyne hadda ka hor baan anoo ingiriiska jooga warqad u soo diray hantidhowraha guud waxaan ku yidhi dadkaa mushaharkoodii akoon bareefdaa lagu shubtay hay-adda maamul wanaaggaan u soo diray wasaaradda warfaafintaan u soo diray mudan madaxweyne og baan adiga kuu soo diray iminkana wax allaalay wixii loo baahdo document caddaynaya wixii halkaa ka socday gacantaan ku hayaa waana soo gudbinayaa in badan baan kala xishooday inaan saxaafadda wax soo mariyo in badan ayaan ka xishooday inaan saxaafadda wax soo mariyo laakiin way ka fursan weyday waxaan rajaynayaa wax kasta oo loo baahdo documentary baan ku hayaa waa diyaar madaxweyne iyo cid kasta khusaysaa waana soo hordhigayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu